عويس ونكسن داودير ملك صاد نقد داونيسان كسود هذا ورك يجي عويس نمو وحنا نتكرر لقينا إلا دا دين عفر سمدا نقد قبصتي مقالة تشجيع يا لقب بلا بيد قنقلينتا ماستر بلانك عصوب إيه مقالو ينكا عبد الله ربي أيا إنه فاهنا يا مقالة تشجيع ولا لقب بلا بيد قنقلينتا ماستر بلانك san habka lagu muujiyay master planka magaalada loo dejiyay waxaa jirta in qaar dadka kamid ah ay ka iman karaan cabashooyin la xiriira dhaqangelinta master planka haddaba maariya ku-xigeenka maamulka magaalada Jigjiga injineer Guleed Dayib oo arintaasi ka hadlay ayaa yidhi ماستر بلان في هاي توصلوا يعني يوفنسا قفي لكن وطاقشان وفهموا ماستر بلان هو يوفني ماستر بلان هو حبيه يا خوف يا متشين كتير بديه يا وقطع مقطع وضل مش داعسي يا ماشي فقفي وبعض التوصيل الله تصور هذا كان كره لكن واحد ما هو قص عضو من كل حني من كبيرة ما هو قراءة الدنيا لما دام هي وراء ما لإيجيا ما كان في كل صوت كل أحيان لنا مستقبلان كلهم كنا يا مكان أرناسي أرن ربنا كعوض وشكل لكن أرن محدثين injineer Guleed waxa kale uu ka hadlay dhibaatooyinka dhinaca wadooyin la'aanta ka iman kara iyo sida mudnaanta loo kala siiyay hawlaha la qabanayo meel taala mariyo oo midkii laga soo qaaday ayaa la waayay inay xaafadda toddobaad ama xaafadan inay toddobaad sidoo kale inay cabshuun baa ka yimid xaafadda sagaalaad iyo xaafadda afraadna inay waalan marka mid waxaan siinay koow baahida dadkan oo ku tumayna cabshuunta ay soo qorteen baan eegnay jawaabni talabaad mustaqbalka markaad eegto meelo waxa jira totally ay ugu qabtaa ama qoraal oo dhibay ahayd meelahaasna xoogan saareen waxa kale oo aan xoog saareen ama u eegay inay socodka bulshada oo meelaha totally lahayn dadweynaha oo arintaasi dareenkooda ka muujiyay ayay qaar ka mid ah sheegeen sidan soo socota master planka magaalooyinka oo waqti dib u habeyn lagu sameeyo waa asaaska dhabta ee horumarinta magaalooyinka
wakaaladda jidadka maamulka magaalada Addis Ababa ayaa shaaca ka qaaday qorshaheeda ay u diyaarisay sanadka 2004 Abdullaahi Rabbi iyo markale wakaaladda jidadka Addis Ababa ayaa soo bandhigtay warbixinta waxqabadkeedii sanadkii 2003 ee dhamaaday waxa kale wakaaladdu shaaca ka qaaday qorshaheeda sanad miisaaniyadka 2004 haddaba maareeyaha guud ee wakaaladaas injineer Fakade Hayle ayaa sheegay in wadooyinka gudaha magaalada Addis Ababa ee sanad miisaaniyadkii 2002 ahaa 3324 kilomitir in sanad miisaaniyadkii 2003 la gaarsiiyay 3512 kilomitir maareeyaha guud waxa kale uu sheegay in sanad miisaaniyadka 2003 wadooyinka dhinaca cobblestone-ka ee magaalada laga dhisay in dhererkoodu u dhan yahay 50 kilomitir injineer Fakade oo ka hadlay dhibaatooyinka ay wakaaladiisu kala kulantay waxqabadkeedii sanad miisaaniyadkii 2003 ayaa sheegay in dhibaatooyinkaasi kuwa ugu waaweyn ay ka mid ahaayeen wada shaqaynta lala lahaa qaar macadyada magaalada ka jira ahaa oo dhibaatooyin ka jireen iyo dhibaatooyin dhinaca qalabka dhismaha iyo qaar qandaraaslayaasha ka mid ah oo awoodoodu koobnayd ururka iskaashatada ee basaska yaryar ee la yiraahdo Jarar ayaa bilaabay adeeg ballaadhan oo dhinaca bulshada ku gaarsiinayo adeegaasi ballaadhana waxaana uu bilaabay adeegii dhinaca gaadiidka ee uu isku xidhayay magaalada Jigjiga ilaa magaalada Qabri Dahar faafaynta warka ayaynu gudbinaa iskaashatada la yiraahdo Jarar ee basaska yaryar waxa ay ka mid tahay iskaashatada ka jirta deegaanka Soomaalida waxaana iskaashatadu ballaadhisay adeegeedii ku koobnaa meelaha gaagaaban ee gobolka Jigjiga waxaana ay basasku bilaabeen in ay u kala gooshaan ilaa iyo Dhagaxbuur Sheekoosh iyo Qabri Dahar waxaana socdaalkaasi suurto geliyay dhamaystirka wadada laamiga ah ee isku xidha magaalooyinka Jigjiga Sheekoosh Dhagaxbuur iyo Qabri Dahar oo meel fiican maraysa iyo xaaladda nabadgelyada ee ka jirta deegaanka Soomaalida gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada basaska yaryar ee Jarar mudane Cabdulqaadir Axmed Xirsi oo ka hadlaya adeega cusub ee iskaashatadu mid ka mid ah shaqaalaha iskaashatada ururkaasi oo ka hadlaya adeega ay shacabka ugu adeegaan sida ay tahay iyo habka ay u wadaan waxaan ku garanaynaa qofka ama dareyskiisa dadku way soo deeqaan halkii laga soo baxeen oo la isgaranayo qofka aan ma siinayno qof aan alaabti lahayn